السلام عليكم بان idin salaamaya saaxiibayaal ku soo dhawaada YouTube channelkeena waxaan doonayaa maanta inaan idin yar tuso website loo baahinayo macnaha si qaldan dadkuna ay si qaldan u fahansan yihiin horta bariyahan dambe waxay dhalinyaradu aad ugu mashquulsan yihiin arrimaha online-ka وهوال أونلاين كلعب ولا جسمية وحجر وبسيدي فربضن أو قف هدي أو وقت الجلية ولا عكس سمين كرا سيدو كله حق ماركتينج أي آدم كلعب وجسمية أونلاين كجودي هيسا سيدو كله ويفربضي هنا العقل جسمية تدخل غربي فيديو ميكين حام سمية فيديو يسميين العكس سمية وحيوها صدق ولا جسمية لكن ما أنت واحد دولنا أنتو سو ويب سايت كاني وحو سو قالوا لا لبدي بلاد صدحتي بلاد ودن بيي بدسكو عادكم مشغول سينهين وانتي waxaan rabaa inaan idin cadeeyo in website-kan yahay mid fake ah dadkana lagu dhacayo lacagtooda laga qaadanayo aan faa'iido lahayn waxa ku qasaari waqtigaaga iyo lacagtaada cadeymana waan idin cadeynaya macnaha cadeymo cadcad baan idin siinayaa aniga baa waxa maal dhaweyta linkiga soo diray wiilaan asxaabnahay dadku wuxuu igu yiri website-kaas baan ku jira lacagta leeg baan ka sameeyay la bax markii aan isriba waxay ku xidheen 30% referral iyo noqonaya marka 30 years baa rabaa inaad ka mid noqotid waayiba ku yiri soo dir linkiga way soo diray sidoo isku diiwaan galiyay gudaha website-ka hadda markaad u soo gasho waa noocan hadda idin muuqdo sidaan uu eegyahay markaad gudaha u soo gasho waxaad sameynaysaa inaad halkan iska diiwaan geliso halkaad iska diiwaan gelinaysaa waxaad gelinaysaa username-kaaga email-kaaga password-kaaga marlaad password ku celinaysaa inta markaad sameyso hadaba waxaan isleegi doonaa anigu account baan ku leeyahay gudihiisa laakiin account cusub inaynu create garinaan isku daynaa marka horeeya hadda username baynu gelinaynaa waxayna username-daas aynu gelinay email buu leeyahay geli email buu hadda leeyahay geli waxaan gelinaynaa email-kaas aynu gelinaynaa password-ka ayuu haddana qoranayaa geli password-kiisa aynu gelinaynaa inta markaad geliso waxaan leeyahay password-kaaga labada goor isku mid maaha marka waxaan isku daynaa hadda inaan saxno waxaan leeyahay markaa gmail-ka igu xidh marka gmail-ka hadda furmaya gmail-kaasina ku xidhaynaa واتهاي صاحبي هذا واحد ركتان إن أنا أكون عصب سميني أكون كعصب يعني سميني وحوشيجي إني أنا المونجي سيرة هاي أو واحد عجوا أتكا فايداني ترين referrals كينو جحران نيجونو وسيرة واحد أوان لهذا الديوان قلني ما شرته sidoo kale wixii noo sheegaya dadka aan diiwaan gelinay lacagta ay shaqeeyeen waa zero intaasi halkan zero bay tahay
haddaba marka shaqada laaga baahan yahay markaad soo gashayna leeyihiin samee waxa weeye inaad marka ugu horeysa aad daawatid fiidiyo walba oo daawato waxay yiraahdeen lacag baan ku bixinaynaa waan idistusi doonaa qabka lacagta u bixinayaan fiidiyadu way kala qiimo duwan yihiin fiidiyo walba sida waqtigiisu u dheer yahay uu kala lacag badan yihiin macnaha haduu yahay 500 second haduu fiidiyo ku soconayo waa lacag gaara haduu 1000 second soconayo waa lacag gaara 1000 second soconayo ayaa ka lacag badnaanaya 500 second soconaya marka waxaynu hadda eegi doonaa fiidiyada ayay noo soo baxaya waa kan waxay noo soo baxay fiidiyada ay lacagta ku bixinayaan hadda fiidiyogaasi waxa lagu leeyahay hadii aad daawato waxaad aad gaxaysaa $5 baad helaysaa kan hadii aan daawanana waxaynu helaynaa $9 kan hadaynu daawan $4 baynu helaynaa marka sida u kala lacag badan yihiin u kala waqti dheer yihiin marka mid yaro hadda tusaale aan idinku soo qaataan doonaya oo waqti aad u yar soconaya inaan ku dhufano hadda ka 0.5 taasaynu ku dhufanayna ku tasanti weeyi hadii aynu daawano ku tasanti baynu faa'iideynaa waqtigiisuna waa yar yahay marka fiidiyogaasi la daawada waxa rabaa maanta qof walba oo ku lug lahaa website-kani inuu ogaado khiyaanada iyo beenta ku dulduugan It has 4 gas burners in 3 sizes, meaning you can use pans for a variety of meals. Give your pans the support they need with this hob's sturdy cast iron pan supports. Because they're made from hard-wearing cast iron, they can shoulder the weight of your pans easily. When you want to cook up a feast, you can load up your hob with pots and pans without any worries. Hoover's rotary controls are designed with simplicity and ease of use in mind. With a simple twist of the dial, you can turn on each burner and alter the heat level to suit your needs. And because they are positioned at the front of the hob, you won't have to reach over any burners while cooking. So, you can prepare your favorite dishes with the minimum of fuss. If you're looking for a gas hob with easy-to-use controls and precise cooking, this black model from Hoover is a great choice. صاحبي waa dhamaad hadda fiidiyogii wuxuuna leeyahay waka kotakiisanti wiidiyoad ka faa'iideysana waynu ka helay waxaanu sameynaynaa akoonka ku darsubiina leeyahay akoon badaranaysaa kotakiisanti wuxuu kugu biirayaa akoonkaagii hadda markii dhaweyd akoonku wuu cusbaa furnay kaydii hore idinku ma tusin mid aan tusaale ahaan u soo qaatay baan idinku tusay wuxuu marayay 00 hadda inuu eegi doona lacagta markuu biirtay inta uu soo baxo weydinka ila arkaya kotakiisanti ku dhacay akoonkeeni hadda lacagtan aysan waa kotakiisanti referral attractigeenu isagu wali waa 0 oo qof wax dad oo aynu diiwaan galin wali ma jirto dhanka kale referralskeena waa 0 oo dad aynu diiwaan galin oo inoo shaqeeyo ma jirto waa yahay hadaba lacagtani hadii aan doonayo inaan la baxo withdraw money marka aad tiraado wuxuu kugu oranayaa account number-kaaga geli anigu markii aan website-kani hawlihiisa ugu horeysay ku cusba account number-kayga aan geliyay laakiin waxaan idinka digay idinku account number-kiisa aad gelisaan dibta ka dhimanaysa halka dambe aan idinka sheegi doonaa waxaad iska gelisaan waxyaabahan kale waayo mar walba Visa card iyo Mastercard wixii lacag ku jirto waa lacag lagala bixi karo marka waxaan hadda ku tijaabinaynaa waxaan gelinaynaa kale imka Bible-kaas oo kale ayaynu gelinaynaa waan gelinay ibilkaasaynu galinay marka waxaan leenahay withdraw money wuxuu yiri markaynu dalbanayno lacagteeni kala baxno wuxuu ina leeyahay kuguma jirto lacag kugu filan oo aad la bixi karto macnaha waxa jirta shuruud ay yiraahdeen qofku hadii $200 wax ka yar ugu jirto lama bixi karo marka waxa most aynu $200 lacagteena gaarsiino kadibna aynu la baxno markaas aynu $200 u gaarno waxa laynooga baahnaan fiidiyo fara badan daawano halka marka ay marayso waxaan idin tusayaa akoon anigu aan leeyahay
oo aan labada boqol iyo ka badan igu jirto iyo wixii la igu yiri micnaha hadii aad labadan boqol soo gaadho macnaheedu waxa weeye lacagtaada inaad helayso mise wali caqabado ku sii hordhigayaan bal ila arka hadiyada waa la isku soo dhigtay Soomaali lacag wareertay baynu nahay laakiin ma malaysan karaysid baan ku waxyaabaha aad lacagta raadinaysid aad kala kulmaysid waxaan rabaa hadda inaan idin tuso akoonkan waa akoonkaygi weeyi imka waxaad way noo bilaamaysaa shirkada rasmiga ah iyo waxyaabaha ay ugu cadaatay in website-kani fake yahay idinkana aan rabo inaan idin la wadaago si aan dad dambe ugu hangoobin qof walba muuqaalkani gaadhana ma rajayno inuu ku hangoobi doono hadda markii dhaweyto wuxuu nagu xiray bay ahayd shuruud ah waa inaad gaadhsiisaa $200 ka yar lama bixi kartid okay waxaa idin muuqda akoonkan imika $200 waa gaadhay waliba waa dhaafay $204.70 ayuu marayaa sidaad ka arkaysaan waa tahay ma la baxay lacagtaasi ayaa isweydiin mudan maya lama aanan bixin waaye maxay tahay doo sababtaan lacagta la bixi waaye qofna lacag halkaa u taala lama bixi waayeen waxay tahay baan idin sheegayaaye markii aan ka soo gudbay shuruudan ah in lacagta 200 la gaarsiiyo waxay igu xidhan shuruud kale ama caqabad kale ay hordhigeen oo ah in la gaarsiiyo in aan sameeyo referralska hada akoonkeeni halkan referralska inagu xidhan inaynu gaarsiino 0 ba halkan ahayd Soomaaliya ay gaarsiiyo 30 qof inuu igu xidhmo 30 qof inaan soo diiwaan geliyo aan idin tuso waka halka referral atratiga ma arkaysaa waxa la doonayaa 30 qof inaan soo diiwaan geliyo dabadeetana markaas la baxaysaa baa la yiri waayahay waxaan sameeyay dadkii baan soo diiwaan geliyay hada sawirka ma hayo aan idin tuso ma hayo akoonkayga hadaan gudaha u gali lahayna caqabada qabsata xagga dabaan idinka sheegi doonaa 30kii qof baan soo diiwaan geliyay deeta waxa ii soo baxday qoraalkan yare halkan idinka muuqda ee ah qoraalkaasi ah transfer money immediately akoonada kale ma soo saarayaan hada akoono kale aan intuu sidoo asxaabta dadkii aan diiwaan galiyay ay leeyihiin uma soo saarayo iyaga lacagta la bax kosof diiwaan gelinta 30 qof ma dhameystirin ma aysan dhameystirin marka qof markuna dhameystirin uma soo saarayo inuu maxaadana yiraahdo hada lacagtaadi la bax akoonkii intii kale oo dhan user area wixii oo dhan hada isku mid maaha marka dhankan aad eegtaan waxa idin muuqda in user area ay jirto oo ka arkaysa earner money-gaagi referral attractigaagi iyo dadka kugu xidhan lacagta ay sameeyeen 30 qof markaad u soo diiwaan geliso gabi intan oo dhan inta soo xidhaba waxa ku soo baxaya sawirkan oo kala ku soo baxayo qoranaya lacagtaada degdeg ula bax waaye lacagteedii baan isiri dalbo waa ku dhuftay waxaan geliyay card master cardkayga ayaan geliyay deetii markaa geliyay waxay igu yiraahdeen waxaad samaysaa lacagtaada waxay kugu soo gaari doontaa muddo 30 ilaa 60 days ah bay kugu soo gaaraysaa inta ka horeysa ma heli kartid si aad si degdeg ugu hesho waxaad samaysaa $15 bixi kadibna dalbo halka markay sheekadu mareysay baa waxaan sameeyay waxa ku jira card master cardkayga baan geliyay lambarkiisa hore idinku soo sheegay hadda idinka waxaan idinku lahaa markaad withdrawga sameeynaysan master cardkiina ha gelinina waaye haddaba markay ku yiraahdaan $15 baa laga rabaa si aad u samayso withdraw oo aad shuruudihii hore dhan soo buuxisay haddii aad master cardka ay geliso lacagta kugu jirto hadday $15 ka badan tahay waa laga la baxaya haddaba aniga waxa igu dhacay inaan sameeyo inaan war soo diiwaan geliyay 30 qof waan dhameystiray lacagta 200 waan soo gaarsiiyay markii ay mareysay ay yiraahdeen lacagtaada si aad si degdeg ugu heshid $274 kugu jirta si aad si degdeg ula baxdid samee inaad lacag $15 aad bixiso kulli horta arrinkaas waa ila cuslaaday laakiin master cardkayga ayaan rabay inaan ka saaro markii ay gelisadna waxa dhacaysa in lacagta kugu jirtaba
intii aad u ogolayday $15 ka badan lagala baxo marka ha iska gelinina website-ka saasaad ku aragtaan cadaynta kale idinku hayo in website-kan fake yahay hadda aniga akoonkayga waa kan aan idin tuso halka waxa idinka muuqda agmoney baa idinka muuqda marka agmoney soo ma markaan website-ka gudaha ugu jiray agmoney waan ii soo baxayay waaye isla qof gabadhan oo aan linkigayga u diray oo linkigayga iska diiwaan gelisay halka maxaa u soo baxay UYUF money waayadan u soo baxay waaye isla saaxiib kale ama qof kale oo aan ka diiwaan geliyay linkiga aan tusaya 8 money waa u soo baxay waka taas waxay cadeynaysaa marka waxana inuu yahay wax iska fiiga dadkana waqtiga iyo lacagta lagaga luminayo marka waxa rabay inaan markaan baaritaan badan ku sameeyay dila wadaago cadeymahaas baan idin hayaa lacagta aad shaqaysata lama bixi kartid adiga la bixi lahaa lacagtan hadii la baxayo hadii aad Mastercard-kaaga ama Visa card-kaaga aad iska gelisana hadhow toole caqabadaas aad kala kulmaysaa marka qofkii raba xataa inuu tijaabiyo qofkii xataa raba inuu tijaabiyo withdrawing methods kan kala dooro ha dooranin Visa card iyo Mastercard card bankigaaga oo dhan ha iska gelin kuwan kale dooro ku tijaabi waa tijaabin kartaan aad baad mahadsantihiin waxaan rajaynayaa inaad halkaasi aan idinka xog bixiyay waxyaabaha kale ee marba aan idinku xogaalsanahay insha Allah waan idinku soo gudbin doonaa channelkayga Istaxayir Weyne subscribe saara like iyo comment wixii aad haysaan baalkaasi igula soo wadaaga aad baad u mahadsantihiin hana la iska ilaaliyo linkiskan ma aragti wareegiyo lagu soo diray mar walba horta inaad wax cusub tijaabisaa way fiican tahay aad buu fiican tahay laakiin gmail-ka aad ku furaysaan yaanu noqonin gmail-ka sida rasmiga aad u isticmaashaan ee xogihiin oo dhan idinku jiraan ee akoonadiin oo dhan idinku xidhan yihiin yaanay noqonin gmail kale ku fura markaad furaysaan waana iska hubisaan dabadeed tijaabood ku sameyn kartaan laakiin waxyaabo badan xataa linkiska laftirkooda bay qaariya computerkaaga iyo mobilkaaga iyo gmail-ada waxa dhanka khalkhalinayaan laakiin qofku sideedoo kale waxa jira jecelina wax cusub oo walba ay tijaabiyaan waxay arkaan bay tijaabiyaan aan looga warraminayo ku soo warramaan marka aad baan idin salaamayaa idinku soo gabagabeynaya assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh